aqoon-yahano reer galmudug oo ku sugan magaalada Cadaado ayaa kulan soo dhaweyn iyo wada tashi isugu jira waxa ay la qaateen wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Doore oo lagu soo dhaweeyay magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug kulanka oo soo qaban qaabiyeen ardada ka qalin jabiyay jaamacadaha ku yaala magaalada Cadaado iyo sidoo kale macallimiinta iyo maamulayaasha iskuulada ayaa waxa looga wada hadlayay sidii wasiirka lagu soo jeedin lahaa talooyinka iyo baahiyaha waxbarasho ee ka jira deegaanka qaar ka mid ah soo qaban qaabiyaasha xafladda oo si isla mid ah u soo dhaweeyay wasiirka ayaa waxay uga warbixiyeen baahiyaha ka jira deegaanka iyo waxyaabaha ay hiigsanayaan in wax laga qabto mudane wasiir deegaankan sidaa darteed ardadaas digrigii koowaad ee dhameeyay digrigii labaad ma haystaan macnaha masterka ma jirto deegaankan marka tala soo jeedinta koowaad ee aan soo jeedinayo mudane wasiir aan ku soo jeedinayo waxay tahay in ardadaas ay master ay helaan oo ay jaamacad master halkan aad xitaa noo keento inagu lacagteena aan iskaga dhiibno laakiin waa inaan helnaa horta jaamacad master qodobka xiga waxa weeye tala soo jeedin mudane wasiir waa in aad mudnaanta koowaad siisaa ardada deegaankan ka qalin jabisay khaasatan educationka markii aan leeyahay dee si guud aqoon-yahankii waa looga soo hadlay laakiin marka educationka le anigaa ka mid ah waa ardadii koowaad oo ka qalin jabiyey maxay tahay kulliyadda waxbarashada waa in mudnaanta koowaad la siiyaa oo lagu dhiirageliyaa si ay macallimiintaasu ay deegaanka uga shaqeeyaan iyo macnaha macallin kaliya maaha inuu ka shaqeeyo qofkan shakhsiga oo jaamacadda barta kaliya waa in wasaaradda waxbarashada inaad dee shaqooyin ka siiso mudane wasiir tala soo jeedinta xigta waxay tahay anigu waa tala soo jeedin ma ahan waajib ma ahan dee wax kale yaan ii fahmin kaliya waa tala soo jeedin dadku dee warkii way yidhaahdeen way soo dhaweeyeen mudanaha laakiin anigu mudane wasiir tala soo jeedin u badan yahay hadalkaygu oo usoo istaagay tala soo jeedinta labaad waxay tahay xigta waxay tahay gabdhaha deegaankan macallimiinta ka aad bay u yar yihiin waa fara ku tiris aniga ka mid ah sidoo kale waxa laga yaabaa 6 ama 7 ama 5 inay xitaa gaarsiisneen oo ay u badan yihiin rag wixii ka shaqeynaya iskuulada aad baana loogu baahan yahay macallin gulba ujeedina caawas soo dhaweey waaye wasiir ku soo dhawaad Cadaado gacmo furan ay kugu soo dhaweeyaysaa waxay diyaar u tahay hawlaha waxbarasho ee Galmudug inay qaybteeda ka qaadato waxay diyaar u tahay inay maxaa la yiraahdaa si volunteer ah haddii aragti tahay iyo haddii ay tahay maxaa la yiraahdaa hawlo kale nooc walba ha aadeen wasaaradda waxbarashada la shaqeyso wasiir dabcan wixii talo iyo tusaale ah dib inoo noqon doono haddii la yiraahdo aad iyo aad aad umahadsan tahay imaatinka aad noo timid waan kaaga mahadcelinaa wasalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد هذا المسيح هاي waxay kaga dhigan tahay bulshada reer Galmudug wax weyn oo ay ku gaari doonaan higsiyo waqti badan ay lahaayeen laakiin aysan u suurtagelin in helaan qofkii u fulin lahaa wasiir hanka intaas la eegan ka leenahay waana rajaynaynaa inaad wax weeyaan intaas iyo in ka badan baad la imaan doonto soo dhawaa wasiir ku soo dhawaa degmada Cadaado reer Cadaado inta laga sheegay oo sifahay leeyihiin oo ah inay yihiin dad iska kabay dhanka waxbarashada heerka hoose mar labaadna u gudbay waxbarashada heerka sare markii inta laga soo tago waxa jiro deegaano badan oo reer Galmudug ah oo qaarkood ay Cadaado iyo waxa weeyaan iyo magaalooyin kale ay ku xiran yihiin oo waxbarashada waxa weeyaan heerkii la rabay aysan gaarsiin waxaan rajaynaynaa inaad hawsha aad qaban doonto ay ugu muhiimsanaato in waxbarashada la gaarsiiyo deegaanada aysan waxbarashadu waxa weeyaan ama qaybta dugsiyada sare iyo aysan gaarin ama sidoo kale in la bilaabo ayadana waxbarashadii inta ugu badan waxa weeyaan bulshada lagu hormari jiray oo la dhigi jiray oo loola hareemiyay runtii sidoo kale Xuseen Cali Sahal oo ah gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Cadaado ayaa waxa uu dhankiisa soo dhaweeyay wasiirka waxbarashada ee dowlad goboleedka Galmudug wuxuuna uga warbixiyay dhanka baahiyaha waxbarasho ee ka jira deegaanka marka wasiir waxa ku talinaynaa hadii la yiraahdo in siyaasadda waxbarasho oo deegaanka lagu horumariyo ay la helo taasoo aan ka heli doono tayo hadaan tayo helana waxaan gaari doonaa horumar intaasna waxaa lagu gaari karaa wada qabsi iyo dadka oo iskaashada
wasaaradda dawladuna si guud marka loo fiirsho ama wasiiradu waxaan u malaynayaa dhinacna waxaa ka haysata xasilinta deegaanka oo caqabado badan oo raagay oo maaragtay ka jiraan dhinaca kalena institutionada ka shaqeynayaan waxay ka rabtaa shaqo iyo qorsheyn iyo horumarin marka xisaabaadku waa tiro badan iyo bulshada waxyaalo badan u fiirinayaan laakiin hawl badan taala waxaan rajaynaynaa deegaanka uu noo xasilo in wax badan ay qabsoomi doonaan laakiin laga wada shaqeeyaan dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ee maamul goboleedka Galmudug Qadar Farax Biciid oo isna kulanka ka soo qayb galay ayaa waxa uu sheegay in wasiirka uu yahay wasiirkii mudnaa in loo dhiibo wasaaradda waxbarashada ee maamulka Galmudug 4 sano ee soo socota sidaas darteed waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala oo na rabaa inaan ugu bishaareeyo hadda bahda waxbarashada oo reer Cadaada hortayda fadhisay si guudna reer Galmudug ugu bishaareeyo waxaan aaminsanahay wasaaradda ninkii mudnaa wasiirkii mudnaa in gacanta loo geliyay ilaahay idinkiisna waxaan rajaynaynaa 4 sano kadib heerka hadda ay taagan tahay oo 3 jibaara inay gaartaa ilaahay idinkiis ka rajaynaynaa insha Allah tacaala ugu dambeyn wasiirka oo munaasabada soo xiray ayaa wuxuu dhankiisa ka mahad celiyay soo dhaweynta diiran ee dhalinyartu ay u sameeyeen sidoo kalena waxa uu sheegay inuu si dhow ula shaqeyn doono bahda waxbarashada ee magaalada Cadaado isla markaana 4 sano ee soo socota uu uga tagi doono wax la taaban karo dhanka waxbarashada ee magaalada Cadaado dhibaato ka taagan sida macallimiinta loo qaybiyo ama macallimiinta yimaada wasaaradda soo mara loo qaybiyo waxay ku jireen ayaduna baahida sida loogu kala badan yahay iyo sida macallimiinta hadda loo kala badsaday istaraatiijiyadda markay ku timaado inaysan Cadaado macallimiin haysan magaalo kalena ay macallimiin tiro badan haysato macallimiinta kale oo yimaada automatically way caddahay meesha looga faa'iideynayo waayaan iskuulo badan oo ay furmi waayaan marka caqabadahaas iyo waxyaabahaas oo dhan oo diyaarsan waxay kamid tahay waxyaabaha noo diyaarsan oo istaraatiijiyad qaas ah oo loogu talagalay COVID-19 response strategy la yiraahdo oo looga jawaabayo oo Galmudug wasaaradda qorsheynta loo gudbiyay ay kamid tahay waxaan rajaynayaa in teamka Cadaado isku xil saaray inaan si gooni iskaga aragno hadii la hayra wali waxyaabi aan kristiya meesha igu qoran rural development-ga ama waxbarashada rural education-ka waxay ayadana igu jiraysaa istaraatiijiyadda si gooni ah u eegi doonaa insha Allah deegaanada ay tahay in oo laga fuliyo ama lagu koofar gareeyo baahidaas ayna ka soo baxaysaa insha Allah marka in waxyaaba ay noo baarayaan oo ay baahida ka ogaanayaan inay rural education-ka inay ku daraan insha Allah aan ayadana aan codsanayno hadii la hayra markasta waxaad sheegteen in meeshan waxa isku mid ay bahdii waxbarashada ay tahay waxaan idin sheegaa in wasaaradaydu ay u furan tahay in lala taliyo wasaaradaydu inay u furan tahay in hadii ay qaloocan tahay la yiraahdo meeshaas ka qaloocan tahay mar kastana waxaan samayn doonaa hadii ilaahay yiraahdo aan idin kala tashan doonaa guddiga tacliinta sare ee Galmudug waxyaabaha ay baarayaan waxa ka mid noqon doona maxaa jaamacad noqon kara maxaa jaamacad noqon kara macallimiinta dhigaya kuwa ayagaas high commission kaas oo waxa la yiraahdaa higher education commission oo tacliinta sare kaliya loogu talagalay inay ka shaqeeyaan ayaan insha Allah aan rabaa inaan sameeyo wada tashi badanana wada hana ka walwalina baahi kasta oo jirta waa idin kala shaqeynayaan aniguna waxaan u noqon doonaa insha Allah geed fadhi waxaan mar kale idin kaga mahad celinayaa sida isku tashiga ah ee bulshada reer Cadaado ay waxbarashada ay uga shaqeeyaan Ismaan Madaale El Hur Online magaalada Cadaado